ducadan rasuulka laga wariyey haddii aad akhrisatid mar kastoo aad meel degtid waxaa xaqiiqa inaadan wax masiiba iyo wax dhibaataa midna la kulmayn ilaa aad meeshaas ka guurtid. wuxuu yidhi Qurdubi raximahullah, khabarkan waa mid saxiixa oo run ah, waxaana ku ogaaday daliil ahaan iyo tijaabo ahaanba. maxaa yeelay laga soo bilaabo markii aan khabarkaas maqlay waan ku camal falay oo waan sameeyey, wax dhibaataana ma arkin ilaa inaan ka taga maahane. waxaa habeenada ka mid ah i qaniinay haraan, kadibna waan fakaray siduu ii qaniinay haraanka. waxaana ogaaday inaan hilmaamay oo aan akhrin kalimaadkaas. naftayda ayaana ku yidhi anigoo canaananaya oo qoomamaynaya hadalkii uu nebigu ku yidhi ninkii la qaniinay oo ah, adiga maxaad u dhihi weysay markii aad galabaysatid iyo markii aad subaxaysatidba acuudu bikalimaatillaahi taamaati min sharri maa khalaqa. nebiga ayaana yidhi sallallahu calayhi wasallam, idaa nazala axadukum manzilan falyaqul, midkiin haddii uu meel dego ha yidhaahdo acuudu bikalimaatillaahi taamaati min sharri maa khalaqa, fa innahu laa yaduruhu shay-un xataa yartaxila minhu. maxaa yeelay wax dhibaataa ma arkaayo ilaa uu meeshaas ka guuro. haddii aad muslim tahay ha dhaafin adigoon sii sheergarayn ducadan.